wasiirka caafimaadka Puntland maamulka gobolka bari gudoonka degmada Boosaaso iyo laamaha ammaanka ayaa si weyn ugu soo dhaweeyay magaalada Boosaaso wafdi balaaran oo ka socda dalka Turkiga. xubnaha wafdigan oo ka socda hay'adda Turkiga u qaabilsan iskaashiga iyo xiriirka caalamiga ah ayaa booqday xeryaha barakacayaasha jaamacadda Bariga Afrika laanta debdemiska iyo dekedda magaalada Boosaaso. wasiirka caafimaadka Puntland Cali Cabdullaahi Warsame ayaa ka warbixiyay ujeedka xubnahani ay u yimaadeen deegaanada Puntland. Puntland Boosaaso wafdiga in badan baan sugaynay runtii inay noo yimaadaan. alxamdulillaah ilaaha maanta iska leh maanta ayay noo yimaadeen. waxaan rajaynaynaa inay nala joogi doonaan maalmaha soo socda. waxaan uga faa'iideysan doonaa inaanu tusno wafdiga baahiyaha ka jira degmada Boosaaso iyo gobolka intaba. waxaanu isleenahay runtii ilaa haddeertaan musaacadaadkii faraha badnaa ee dowladda Turkiga ay soo gaarisay dalka Soomaaliyeed dhanka Puntland waxaan isleenahay wax la sheegi kara ma ay soo gaareen. Mustafa Hazim Polat oo isaguna qayb ka xubnaha Turkiga ee wafdigan ayaa waxa uu ka hadlay imaanshahooda magaalada Boosaaso. The Somali people are considered as the first Muslims outside Arabia. Hussein Hassan Hussein Huska